kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka shabakada All Banaadir. qodobada aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah xildhibaanada aqalka sare ee dalka oo kulan ku leh magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. faahfaahinno dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Muqdisho. madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika iyo wafdi la socdo oo soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. madaxweynaha maamulka Jubbaland oo qaatay warqadda isdiiwaangelinta musharaxnimada. maamulka Koonfur Galbeed oo sheegay inay dagaal ku qabteen xubno ka mid ah Al-Shabaab, qaar kalena ay dileen. waxgaradka Jubbaland oo sheegay inay dawladda faragelin ku hayso doorashada maamulka Jubbaland. wararka ka baxsan Soomaalidana waxaa ka mid ah dawladda Iiraan oo gacanta ku dhigtay markab ay leedahay dawladda UK. daawadayaal intaasi waxa ay qodobadii warkeen ugu waaweynaa. waa maalinimo Sabtiya, taariikhduna ay ku beegan tahay 20-ka bisha 7 sanada 2019. aynu ku bilownay xildhibaanada aqalka sare ee dalka ayaa kulan waxa uga socdaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa kulankoodii tobnaad kalfadhiga shanaad ku leh xarunta aqalka sare, iyadoona uu shir gudoominayo gudoomiyaha aqalka sare Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi. ajendaha kulanka golaha aqalka sare maanta looga hadlaya ayaa waxa uu yahay aqrinta labaad ee hindisa sharciyeedka golaha mihnadlayaasha caafimaadka. gudoomiyaha guddiga horumarinta adeega bulshada, arrimaha bini'aadanimada, warfaafinta iyo dhaqanka ayaa aqriyay warbixin ku saabsan heerarka kala duwan ee uu soo maray hindisa sharciyeedka golaha mihnadlayaasha caafimaadka qaranka. senator Professor Dr. Cusmaan Maxamuud Dufle oo ah xubin guddiga horumarinta adeega bulshada, arrimaha bini'aadanimada, warfaafinta iyo dhaqanka ayaa akhriyay warbixin qodobada wax ka beddelka lagu sameynaya. faahfaahinno dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan qarax khasaare geystay oo ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. warar dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan qarax miino oo ka dhacay qaybo ka mid ah degmada Hodan ee gobolka Banaadir, kaasi oo geystay khasaaro. dad goobjoogayaal ah oo ku sugnaa halka qarax uu ka dhacay ayaa sheegay inuu qaraxu ahaa miino dhulka lagu aasay, isla markaana lala eegtay gaari qooqan ah oo marayay wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho. inta la ogyahay 2 ruux oo la socday mooto bajaaj oo xilliga falku dhacay marayay laamiga ayaa ku dhaawacmay qaraxaasi, waxaana la tilmaamayaa in gaariga lala eeganayay qaraxa uu ka badbaaday. ciidamo ka tirsan kuwa booliiska ayaa tegay halka uu qaraxu ka dhacay, iyadoona la xiray aaggaasi. ha yeeshee markii baaritaano kooban ay sameeyeen ciidanka ayay waxay dib u fureen isku socodka dadka iyo gaadiidka iyo ganacsiga halkaasi. ilaa iyo hadda lama oga cidda wadatay gaariga ka badbaaday qaraxaasi ka dhacay wadada warshadaha ee magaalada Muqdisho, isla markaana ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya. taliyaha qaybta 12aad ee ciidamada xoogga dalka, Sareeye Guuti Yuusuf Maxamed Cabduqaadir Kaanti ayaa duleedka degmada Balanbale ee gobolka Galgaduud ku booqday qaybo ka mid ah ciidamo cusub oo dhawaan Balanbale laga diiwaan geliyay, kuwaasi oo dawladda u diyaarinaysa in la geeyo dugsiga tababarka ciidamada Harqaboobe oo tababar dhawaan looga furayo. taliyaha ayaa ciidamada u sheegay in laga doonayo in ay diyaar u noqdaan safarka iyo tababarka, isla markaana waxa uu tilmaamay in dawladda federaalka Soomaaliya ay diyaarinayso gaadiidkii geyn lahaa xeerada. ujeedkana uu yahay in la helo ciidan Galmudug iyo guud ahaan dalka ka saara Al-Shabaab sida uu hadalka u dhigay. dhawaan ayaa ciidamadii laga qoray degmooyinka maamulka Galmudug waxa uu tababar uga furmi doonaa xerada Harqaboobe. wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Thabo Mbeki ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Mbeki oo hogaaminaya guddi heer sare ah oo ka tirsan ururka midowga Afrika ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, wakiilka Soomaaliya u fadhiya xogayaha guud ee qaramada midoobay James Iswam, iyo u qaabilsanaha midowga Afrika ee Soomaaliya Ambassador Francisco Madera iyo madax kale. wafdigan ayaa shalay magaalada Nairobi ee dalka Kenya kulan kula qaatay wasiirka arrimaha dibadda dalka Kenya Malika Juma iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya Malika Juma barteeda Twitterka ku soo qortay in wafdigaas heerka sare ah ay ka wada hadleen ammaanka, xasiloonida iyo isdhexgalka gobolka. waxaan kulan la qaatay Thabo Mbeki iyo wafdi sare oo uu hogaaminayo. sidoo kale wafdiga ayaa waxa ay la kulmeen madaxweyne Uhuru Kenyatta. kulankoodana waxaa diiradda lagu saaray nabadgelyada, xasiloonida, iskaashiga iyo isdhexgalka gobolka Geeska Afrika. waxaa sidaasi barteeda Twitterka ku soo qortay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Kenya.
inkastoo aanan la ogeyn ujeeddada rasmiga ah ee wafdigan ka socda midowda Afrika ee u tageen dalalka Soomaaliya iyo Kenya. waxaana la ogyahay in labada dal ay u dhaxayso xiisad diblomaasiyadeed oo ka dhalatay muranka badda. qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in wafdigan ka socda midowda Afrika ay Muqdisho iyo Nairobi u tageen sidii ay u dhexdhexaadin lahaayeen labada dal oo muran dhanka badda u dhaxeeyo. waxaase aanan la ogeyn doorka ay ka qaadan karaan haddii ujeedkoodu uu noqdo sidii muranka badda miiska wadahadalka loogu xasilin lahaa oo loogu dhammayn lahaa, maadaama dowladda Soomaaliya ay marar badan ku celcelisay in wax gorgortana aysan ka gelayn arrinta muranka badda. dacwadda la xiriirta muranka soodinta badda ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa haatan hortaalla maxkamadda caalamiga ee adduunka, waxaana dhegeysiga dacwaddan la bilaabi doonaa bisha Sebtembar ee sanadkan. baaxadda uu ku fadhiyo badda lagu muransan yahay ayaa wuxuu gaarayaa ilaa iyo 100,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah. markii hore kiiskan waxa uu ku saabsanaa in maxkamadda caalamiga ay dhegeysan karto muranka badda labada dal u dhaxeeya oo Soomaaliya iyo Kenya ah. war qoraala oo ay horay u soo saareen ICJ ayaa lagu mudeeyey in 9ka bisha Sebtembar ee sanadkan la dhegeysan doono dacwadda ilaa iyo 13 bisha Sebtembarna ay socon doonto. dhegeysiga dacwadda ayay maxkamaddu u qaybisay 2 wareeg oo ku dhici doona 4 maalin gudahood. go'aankii hore ee maxkamadda wuxuu u dhacay sidii Soomaaliya ay doonaysay oo ahayd in khilaafka aan lagu dhammaynin wadahadal oo maxkamadda ICJ horteeda lagu kala baxo. ha yeeshee maxkamadda caalamiga ayaa meesha ka saartay doodii Kenya ee ahayd in labada dal ay murankooda ku dhammeeyaan si hoose, waxaana arrintaas ku gacan saartay maxkamadda caalamiga ee ICJ. madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa qaatay warqadda isdiiwaangelinta musharaxnimada ee maamulka Jubbaland. madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta oo Sabti ah waxa uu qaatay warqadda isdiiwaangelinta musharaxnimada madaxweyne ee dowlad goboleedka Jubbaland. madaxweynaha ayaa intaasi kadib saxaafadda kula hadlay bannaanka xarunta guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka, isagoo sheegay in uu maray hanaanka sharciga ah ee looga baahan yahay in ay maraan dadka u tartamaya xilka madaxweynaha Jubbaland. waxaa kale oo madaxweynuhu ugu baaqay dhammaan musharaxiinta kale ee ka qaybgalaysa doorashada maamulka Jubbaland in ay maraan waddadaasi, isla markaana bulshada aysan ku abuurinin hadallo nacayb iyo fowdo ku abuuraya bulshada ku nool deegaanada maamulka Jubbaland. madaxweynaha ayaa wuxuu kaloo sheegay in awood dastuuri ah uu u leeyahay magacaabista guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha, balse isaga iyo musharaxiinta kale ay u siman yihiin loona baahan yahay in loo hoggaansamo. wuxuu kaloo intaasi ku daray in dhammaan xuquuqaha dastuuriga ah ee madaxweynaha aynan gorgortan ka gelaynin, sida ilaalinta nabadgelyada iyo xasiloonida guud ahaan deegaanada Jubbaland. dhinaca kale waxgaradka Jubbaland ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay faragelin ku hayso doorashada maamulka Jubbaland. waxgaradka deegaanada maamulka Jubbaland oo kulan ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa si weyn uga soo horjeestay faragelin ay sheegeen in dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ku hayso doorashada maamulka Jubbaland. odayaashan dhaqanka ayaa sheegay in aysan aqbali doonin in dowladda dhexe ay caqabad ku noqoto horumarkii nabadgelyada ka jirta deegaanada maamulka Jubbaland. odayaashan ayaa ka mid ah saxiixayaashii soo dhisay dowladda federaalk Soomaaliya, waxaayna xuseen in aysan aqbali doonin faragelinta ay dowladda ku hayso doorashada dowlad goboleedka Jubbaland. odayaashan ayaa ugu dambeyntii waxay caddeeyeen inay taageersan yihiin sida ay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland ay wax wadaan. hadalka odayaashan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli musharaxiinta maamulka Jubbaland qaarkood ay eedeyn u jeediyeen guddiga doorashooyinka ee maamulka Jubbaland, islamarkaana ay sheegeen inay u afduuban tahay doorashada maamulka Jubbaland. maamulka Koonfur Galbeed ayaa sheegay in ay dagaal ku qabteen xubin ka mid ah Al-shabaab, kuwa kalena ay dileen. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal ka sameeyay deegaanka Owdiinle ee gobolka Baay, waxayna ku dileen 3 xubnood oo ka tirsan Al-shabaab, sida uu sheegay gudoomiyaha deegaanka Owdiinle ee maamulka Koonfur Galbeed. ciidamadan ayaa sidoo kale sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen xubin muhiim ah oo ka tirsan Al-shabaab intii uu dagaalku socday. howlgalkan oo dhacay saacadihii la soo dhaafay ayaa yimid kadib markii ay ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya shacabka ay ka war heleen in deegaano ka mid ah halka uu dagaalku ka dhacay ay isku urursanayaan Al-shabaab. gudoomiyaha deegaanka Owdiinle ayaa sidoo kale xusay in ciidamada dowladda ay qabsadeen hub ay ka baxsadeen Al-shabaab intii uu dagaalku socday. ma jira wax war oo ka soo baxay dhinaca Al-shabaab oo ku aadan sheegashada ciidamada dowladda Soomaaliya oo ah in ay dileen xubno ka mid ah Al-shabaab, xubin kalena ay ku soo dhigeen gacanta, hub kalena ay soo qabteen. weli waxaad daawanaysaan wararka shabakadda Olbanaadir. markaana dowladda Iiraan ayaa marinka Hormuz ku qabatay markab nuuca shidaalka qaada oo ay leedahay dowladda UK. cawaaqib xumo xun ayaa ka dhalan doonto haddii dowladda Iiraan aynan sii deynin markabka ku safrayay calanka dalka Britain
oo ay ku qabteen gacanka, sidaasi waxaa sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka UK. milkiilaha markabka la qabta ayaa sheegay in aynan u suuragelin in markabka lala xiriiraan haatanna uu ku sii socdo dhinaca waqooyi ee waddanka Iiraan. waxa ay sheegeen in 23 qof oo markabka saarnaa ay marinka Hormuz ku soo hujuumeen koox aanan la garanayn oo doonyo watay diyaarad dagaalna ay kor ka taageerayso. waxaa isku gadaamay 4 doonyood iyo diyaarad qumaatiga u kacda, sidaas waxaa yiri markabka milkiilaha leh. markab labaad oo dalka Britain laga leeyahay kuna safraya calanka dalka Liberia waxaa fuulay ilaalo hubeysan, hase yeeshee haatan waa uu sii socdaa oo safarkiisa ayuu sii wataa. guddi degdeg ah ee dowladda ayaa hadda waxa uu shir uga socdaa Whitehall si looga hadlo arrimaha markabkaas. bar internetka oo la socota dhaqdhaqaaqa badda ayaa sidoo kaleeto waxa ay ku soo waramaysaa in markab kale oo nuuca saliidda qaada oo xiriir la leh UK uu u weecday dhinaca waddanka Iiraan. wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegaysa inay ka warqabto wararka sheegaya in markab labaad oo ku safraya calanka dalka Liberia oo Britain laga leeyahay lagu qabtay gudaha waddanka Iiraan. dhacdooyinkan ugu dambeeyay ayaa imaanaya xilli ay sii xumaanaysa xiisadda u dhaxaysa dalka UK iyo dowladda Iiraan. guud ahaan warkii aad kala socoteen shabakadda All Banaadir xilligan waa naga intaa. daawada haddii aad tahay ruux nagu cusub, ha ilaawin inaad subscribe tiraa channelkan kadibna aad taabato calaamadda gambaleelka si aad u noqotid daawadaha koowaad.